السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno topic dadka qaar naga soo codsadeen oo dhaheen suuqa waxaan dhib ku qabnaa support iyo resistance-giisa iyo sida lagu helayo. sidaan idinku ballanqaadnay maalmo trading view wax yar inaan ka hadalno, maaha inaan wax dadka ku barayno, balse inaan tusno inaysan ahayn wax adag oo dadku ay samayn karaan. So support iyo resistance waxaa weeye meesha suuqa uu ka dhigto meesha hoose oo qiimaha oo salka dhigto si uu kor uga kaco waxaa loo yaqaan support. meesha laga soo celiyana waxaa loo yaqaan resistance. marka support iyo resistance waxyaalo badan baad ku ogaan kartaa. waxaa ku ogaan kartaa qiimaha suuqa oo kale, ogaan kartaa halkaas waa meel koroo laga soo celiyey, so waa derbigaas way jabsan weyday, waa derbi adag, halkaas waa resistance. meesha laga iibsado kor looga qaadana waxaad dhihi kartaa waa meel support ah, sida halkan oo kale meel laga kacay suuqa kacay, halkan uu fiiri suuqa ka kacay meelaha 31ka 29ka, halkan oo kale ayadana wuu ka kacay. oo meesha kelima meelo badan way, waxayna ku xiran tahay waqtiga aad eegayso, week miya, day miya, hour miya, minute miya, second miya. so hadda halkan oo kale markaad eegayso supportigeeda waa suuq waa laga iibsaday, dan waa laga soo riday, waa laga iibsaday, waa laga soo riday, dan halkaas oo kale waa support ka kacay, resistance-gii waa. so taas waa TD line-ka. waxaa ku ogaan kartaa adoo channel geliya, waxaad gelin kartaa channel laba line dhexdood. waxaa ku ogaan kartaa adoo indicator ka soo geliya oo dhiga inay support ka dhigteen ama resistance. waxaa ku ogaan kartaa Fibonacci, trend line, waxyaalahaas oo dhan baad samayn kartaa. kadibna zone baad samayn kartaa. zonaskuna waxa weye meelahan culus oo kandhalada weyn oo kala yaalaan, waa meel oo range uu suuq ka sameeyey. waxaad dhihi kartaa meeshaan oo kale waa meel zones ah, zonana ka dhigi kartaa. marka haddaan u eegno xagga trend line-ka, aan ku bilaabana horizontal. badan waxaa fiican horizontalka inaad ka dhigatid, but not qasab maahan, oo diagonal line-kan wuu noqon karaa resistance, support iyo resistance. so hadda halka iminka maanta halku joogo oo kale waxaan arkayna inay tahay meel xasaasi ah, oo haddaad eegto waa meel laga celceliyey baryahan oo dhan, laga celinaya January ilaa iyo iminka halkana laga celinaya. resistance-gii wiigaan haddaan eegano, wiigagaan oo kale waxaan ogaan karnaa halkaan ayadana ilaa iyo January inay jabsan laaday, oo waxaan dhihi karnaa ayadana waa waa resistance. so kalarka loo kala bedeshaa badanaa. so halkaas waxaa kaaga samaysmay support iyo resistance. waxaa kaloo ood ku samaysan kartaa trend line, baa ku samaysan kartaa support iyo resistance-gaaga. waxaad arki kartaa in trend line-kan suuqa uu xushmaynayo in muddo ah, laga soo bilaabo ilaa markaasuu ka kacay, uu ku soo noqday. waa trend line cajiiba. haddaad diagonal u samaysana waxbay ay ku tusto. waxaa kaloo samayn kartaa channel, wax loo yaqaan channel baa geli kartaa. waxaa raadi kartaa channel ay iskula jiraan suuq. waa kaas supportgiisi, waa kan resistance-giisi, waa kaas. channelkan waa ku samayn kartaa. waxaa kaloo samayn kartaa Fibonacci baa suuqa saari kartaa, wax loo yaqaan. waa ku ogaan kartaa muxuu yahay balladu isagana ay tusi kara wax macnaa meesha u sarreysay, meesha u koreysay. masha allah. iminka eeg hadda halka uu joogo, that's a Fibonacci number 0.786 waa Fibonacci number oo important ah, oo ku tusaya waxaas. marka waa inaad waxyaalo badan isku dartaa. suuqa qofka markuu traderka yahay inaad dhahdo support iyo resistance yaan gatay waa iska galaa maaha. waa inaad heshaa waxa loo yaqaan confluence ama isku dhaf.
waad heshaa. Hadda halkan isku dhafiya ii yaala trend line, waxaa ii yaala horizontal line of support ah, waxaa ii yaala Fibonacci. waxaan dhigaynaa moving average 55 oo resistant ah oo suuqu rabo inuu gaaro. kaa kore waxaa ka sokeeyaba kan. waxyaalahaasoo dhan oo waxyaalo qofka traderka looga baahan yahay uuna samayn karo. marka mar walba isku day inaad fahantid. iyo meelahani waa meelo waxa loo yaqaano waa pivot. pivot waxa meel uu ka booday, marna uu ka soo booday, hoos u soo booday, marna kaas. so pivot ingiriiska waxa lagu yaqaana, waxaa loogu dhahaa Soomaaliya waxa lagu dhaho malaha waa meel dheelitiran. suuq waa laga dheelitiray, halkan waa laga dheelitiray, kor bay u qaadeen, waa laga soo dheelitiray. marka bal waxaan isku dayaa pivot inaan sawiro, qalin soo qaato. pivotka haddaad taqaanaan waxa weeye waxaad dhigi kartaa ka soo qaad in laba inan halkan ku cayaarayaan. inankan iyo inankan. so meesha uu ka dheelitiray markii labadooda miisaan koraan ay sinmo is the pivot. waa pivotkii way kan. dheelitira way. so suuqa meelahan uu hadda joogo waa pivot points iyo wixii lamida. meelahaas hadda waa pivots. so wuu ka booday, waa laga celiyey spring bonamo maaragtay. halkaas uu ka dheelitiran yahay markiis uu dheelitirmay. so suuq waa inay lacag gashaa suuq kor u aado, amase uu ka soo daataa oo halkaan ay u noqotaa resistant haddana oo meel kale ka samaystaa. sida dadka qaar leeyihin tuurinaanka annaga uma malaynayno inuu haddana halkaa ka dhigto support oo halkaa isku dayo haddana inuu gaaro. so nuxurka waxa weeye in waxaani wax adag ahayn oo dadku ay baran karaan. dad badan oo Soomaaliya jira oo dadka bara. qaasatan anigu waxaan ku daltana dadku in AJ crypto kale asaaska ka soo bartaan. iskuulo badan baa jira oo laga barto. kan waxaa jira dad kale iyaguna smart money-ga iyo ku shaqaysta iskuuladooda la aado. dad waxaa jira YouTube-yada ku deeqo oo freegooda cilmigooda soo dhiga, ayagana loo mahadnaqo, subscribe-ka loo taabto. marka ummadda istaageertaba ilaahayna taageeraya. marka dadka istaageer laha naga dhigo, subscribe-ka noo taara, YouTube-ka sulka noo saara, kadibna gambaleelka ku xiro si kugu soo dhaco. daa videoga ka heshay waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.